haddii hubka nukliyeerka laga adeegsado bariga dhexe ama meel u dhow gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, waxaa jiri kara saameyn caafimaad oo aad u ba'an oo si toos ah ama si dadban u saameyn karta dadka Soomaaliyeed. Muuqaalkeena maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 4 qodob oo ku dhici kara caafimaadka bulshada Soomaaliyeed haddii la adeegsado hubka wax kumaada ee nukliyeerka. Waad ku mahadsantahay haddii aad hore inoola joogtay. Haddii aad nagu cusub tahayna, muuqaalka like saar oo nagu soo bir daawade. afarta qodob ee ku dhici kara caafimaadka bulshada Soomaaliyeed waxay tahay: 1. wasakhowga hawada, biyaha iyo cuntada oo xumaada, dhibaatooyinka maskaxda, xarumaha caafimaadka oo aan u diyaarsanayn. Haddaynu u nimaano qodobka koowaad oo ah wasakhowga hawada, dhibaatada aynu ka dhaxlano waxay tahay haddii dabaysha iyo cimilada ku xigta nukliyeerka u weecato dhanka Soomaaliya, waxay keeni kartaa in hawada iyo roobku ay noqdaan kuwo wasakhaysan. Cudurrada ka dhalan karana waxaa ka mid ah sida kansarka, gaar ahaan kansarka ku dhaca tayroodhka, xanuunada sanbabada ku dhaca, iyo dhibaatooyinka ku dhaca habdhiska taranka oo inay dhacdo dhalmo xumo ama dhalmo la'aan. Haddaynu u nimaano qodobka labaad oo ah biyaha iyo cuntada oo xumaanaya, dhibaatada ka dhalan kartaana waxay tahay hadday sidani dhacdo: 1. biyaha wabiyada, harooyinka iyo dhulka beeralayda ayaa noqon kara kuwo sun ah. Waxay imaanaysaa haddii daruuro wasakhaysan ay roob ku shubaan oo sidaas wasakhdaas ay dhulka ku gaarto. Saamaynta imaan kartaana waxay tahay: 1. nafaqa darro joogto ah, cudurro sida cudurka kelyaha, beerka iyo cudurrada caloosha ku dhaca. Dilaaga nolosha oo ah inay dhirtii iyo xayawaanadii ay dhintaan, taasoo sababi karta cunno yari iyo gaajo ba'an. Haddaynu u nimaano qodobka saddexaad oo ah dhibaatooyin maskaxeed oo imaan kara haddii la adeegsado hubka wax kumaada ee nukliyeerka, dhibaatada ka dhalan kartaana waxa weeye cabsi, walwal iyo niyad jab joogto ah ayaa ka dhalan karta, maadaama dhagaha Soomaalidu ay maqlayaan wararka la isugu hanjabayo hanjabaadaha dagaalka nukliyeerka. Hadday dhacdo, saamayntu waxay noqon kartaa sidan: 1. korarka cudurrada sida walwalka, murugada iyo xanuunada nafsiga ah oo kordha. Haddaynu u nimaano qodobkeena ugu dambeeya oo ah xarumaha caafimaadka oo aan u diyaarsanayn, dhibaatada ka dhalan kartaana waxa weeye Soomaaliya waxay horeba ula daala dhacaysay baahiyo caafimaad, mana jirto diyaargarow rasmi ah oo lagu wajahayo waxyeelada nukliyeerka. Saamayntu maxay noqonaysaa? Bukaano badan oo aan loo helin daryeel degdeg ah, korarka dhimashada oo siyaada. Waad ku mahadsantahay daawade haddii aad halkan ila soo gaadhay. Wixii fikir ah oo aad ku dari lahayd 4 qodob dhanka komitiga noogu reeb. Mahadsanid. Assalaamu calaykum maamil. waxaan ku keenay saliidda Batana. Run ahaantii saliidda Batana maaha saliid keliyata, waa saliid daawo u ah salxanyaha iyo bidaarta, taas oo leh damaanad 100% ah. Bilic ka maqnayd iyo timaha oo ka go'a, soo celi muuqoodo. Isticmaal Batana hair oil. Batana waa saliid nooceeda tii ugu horeysay, badi dadkii isticmaalay u wada bogeen kaalay oo ila tijaabi saliidda Batana. Saliidda Batana waxay u fiican tahay timaha daata, salxanyaha, timaha kalarkoodu bedelmo iyo dhammaan caqabadaha timaha ku yimaada. Sidoo kale Batana oil waxay kor u qaadaa nafaqada timaha, waxayna soo celisaa midabkeeda iyo inay bixiso tinta. Intaas waxaa ku dheer, saliidda Batana waxaad u isticmaali kartaa sidan soo socota: waa inaad soo maydhaa timahaaga, kabacdi si fiican aad u qallajisaa timaha, kadib meeshii timuhu ka guureen 4 dhibcood ku shub, kadib ku masaajay ilaa 5 daqiiqo. Saliidda Batana waxaan kugu keeni karnaa meel walba aad ka joogto Somaliland, iyadoo aad ku soo dalbanayso qiimo ku raali geliya. Wixii faahfaahin dheeraadana kala soo xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda.